بسم الله الرحمن الرحيم قرال صحافات مقدشو أكتوبر 2022 كلن أيشان مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلي ayaa looga wada hadlay qodob badan dardargelinta howlaha doorashooyinka xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay'adaha amniga xalinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed kiiska Ikraan Tahliil Faarax kulankan oo ku qabsoomay jawi wanaagsan madaxduna ay diiradda ku saareen maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danaha qaranka ayaa la isku raacay qodobadan ayadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxdu waxay isku raacday in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka waxayna ugu baaqeen dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan usbuucyada soo socda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in si dhow ay u wada shaqeeyaan hay'adaha amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalku uu ku jiro doorashooyinka lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur in uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka in General Bashiir Goobe loo magacaabo wasiir dawle madaxdu waxay isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku xigeen kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dekreeto madaxdu waxay isku raacday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaana la faray hay'adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda ugu dambeyn madaxda qaranku waxay u mahadcelinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo mas'uuliyiinta kale ee u dhabar adeegay si madmadowgii madaxda qaranka ku dhex jiray loogu dhamayn lahaa isfaham iyo is-afgarad doorashaduna ay u socoto si habsame leh madaxdu waxay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xun yihiin walwalkii ay dareemeen maalmihii la soo dhaafay iyagoo u ballan qaaday shacabka in ay si midnimo leh uga wada shaqayn doonaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan loona adkayn lahaa amniga guud ee dalka